بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan khiyaarta nala socota ku soo dhawaada tabaniya taxliilin kale oo kamida wararka ugu waaweyn sirdoonka nidaamka Israa'iil iyo kan Mareykanka waxa ay bilaabeen baadi goobka ay ugu jiraan hogaamiyaha ugu sareeya ee wadanka Iran Mujtaba Khamenei kadib markii la waayay goob uu jaan iyo carab dhigay lana ogaaday in dagaalka xoogan oo ciidamada Iiraaniyiinta ay ku jiraan cidda dagaalka abaabulaysa inuu isaga yahay warbixinta gaarka uu qorayo wargeyska The Times ee ka soo baxa wadankaasi Ingiriiska oo arintan la xiriirta ayaan si gaar ah khiyaaray ugu faaqidi doonaa Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo gaaray wadanka Mareykankana muxuu yahay dalabka iyo damaca uu doonayo inuu hordhigo madaxweynaha wadankaasi Mareykanka Donald Trump xilli rabitaankii Israa'iiliyiinta shacabka badan ee Mareykanku ay u hayeen hadda meesha ka sii baxayaan wasiirka dagaalka ee nidaamka Israel Katz lagu magacaabana waxa uu ballan qaaday in ay diyaar u yihiin weerarka xarumaha nuclearka iyo waliba tamarta ee wadankaasi Iran waxa uu ku tilmaamay in ay muhiim yihiin in aanay joojin karin arrimahaasi weerar lagu qaaday gobolka Kurdistan ee wadanka Ciraaq iyo waliba dacdooyin kale oo la xiriira arrimaha diblomaasiyadda siyaasadda iyo waliba dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolka iyo Iran oo qodobo culus maanta ka soo saartay wada hadalka Trump uu ku dhawaaqay xalay inuu la leeyahay mas'uuliyiinta Iiraaniyiinta ayaan ku faaqidayaa qodobadan khiyaarta ay nala socotay meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada YouTube-ka sidoo kale waxaan idin la wadaagi doonaa qaar kamid ah saaxiibadii ka soo fikir dhibtay barnaamijkeena ugu dambeeyay su'aasha maantana waxa ay noqonaysaa sida muuqata Khamenei waa la baadi goobaya Israa'iil iyo waliba Iran aan idhaahde Mareykanku sirdoonadooda Mossad iyo CIA-da ayaa doonaya ninkaasi in ay soo helaan haddaba maxay tahay sababta hadda keenaysa Khamenei in dib loo baaro xilli Trump uu horey u amaanay hasaatee dagaalka hagitaankiisa lagu sheegay hadda inuu maamulayo Khamenei suuragal ma tahay in si fudud xogtiisa ay ku helaan magacaada iyo meesha aad joogto ku bilow isla markaana aragtidaada qaybta hoose noogu qor si aan faallada kale ee barnaamijka aan kula wadaagno oo aan daawadayaasha u soo bandhigno halmaamin la socoteenba markii talada wadankaasi uu la wareegay Mujtaba Khamenei oo la dilay aabihii 28 Febraayo markii Mareykanka iyo waliba nidaamka Israa'iiliyiintu ay weerar wada jira ku qaadeen gudaha wadanka Iran ilaa iyo markaasi waa uu ka soo muuqan waayay fagaaro kala duwan waxaa sidoo kale loo ilaaliyo xogtiisa in si fudud ay ku gaaraan dowladda Washington iyo nidaamka Israa'iil haddaba maalmihii la soo dhaafay waxa aad u kordhay baadi goobka labada sirdoon waa CIA-da iyo Mossad ay ugu jiraan ninkaasi sida ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen warbixin uu saaka daabacay wargeyska The Times ee dalka Ingiriiska ayaa sheegaya in hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad iyo tan Mareykanka ee CIA-du ay sare u qaadeen dadaalada lagu raadinayo hogaamiyaha cusub ee wadanka Iran Mujtaba Khamenei kadib markii uu xilka qabtay geeridii aabihii Ali Khamenei kadib sida lagu sheegay warbixinta uu qoray wariye lagu magacaabo Michael Evans Mujtaba Khamenei ayaa muddo bila ah aan ka soo muuqan fagaarayaasha mana isticmaalo telefoon iyo computer toona arrintan ayaa la sheegay in ay si weyn ugu adkaatay in la dabagalo farsamooyinka sirdoon ee casriga kuwaas oo inta badan ku tirsan baa la yiri isgaarsiinta elektrooniga taasina waxay qasabtay dowladda Washington iyo waliba sirdoonka Israa'iil ninkaasi meel oo jaan iyo carab dhigay inay waayeen halka dhinaca kale oo si caadi ah u maamulaya dagaalka iyo waliba xaaladaha siyaasadda iyo go'aan qaadashada kama dambaysta ee wadanka Iran warbixintu waxay intaasi ku dartay in meesha uu ku sugan yahay Mujtaba iyo xaaladiisa caafimaad ay wali yihiin kuwa aan si caadi ah loo ogeyn sidoo kalena waxa ay soo kordhisay baalidii dadaalada sirdoonka ee lagu doonayo ogaashiyaha halka uu ku sugan yahay wargeyska ayaa xusay in maqnaashiyaha joogtada ah iyo taxadirka amni ay ku qaadatay in ay ka dhigaan bartilmaameed aad u adag in la helo iyadoo Mossad iyo CIA-du ay adeegsanayaan habab kala duwan
oo sirdoon oo la doonayo in si degdeg ah loo dhaqan geliyo. waxaana arrintan ay u muuqataa in dowladda Mareykanku ay hadda raadinaysa mid ka mid ah hogaamiyaashii dunida ee ugu adkaa in ay xogtiisa helaan. dhinaca kale hogaamiyaha nidaamka Israel Benjamin Netanyahu ayaa gaaray dalka Mareykanka isagoo doonaya inuu la kulmo madaxweynaha wadankaasi Mareykanka ee Donald Trump. haddaba muxuu yahay yoolka iyo damaca ninkaasi uu raadinayo? telefishinka Al Jazeera qaybta afka Carabiga ayaa si weyn u taxliilinaya dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee sheekadaasi. wariyaha telefishinka Al Jazeera ee dhulka Falastiin Najwan Simri ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu ku guuleystay in uu la kulmo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump xilli uu wajahayo cadaadis siyaasadeed iyo xiriir sii xumaanaya ee kala dhaxeeya maamulka Mareykanka iyo qayb ka mid ah bulshada Israa'iiliyiinta. sida ay sheegtay wariyuhu, Netanyahu waxa uu doonayaa in kulankaasi uu ku xaqiijiyo dhowr qodob oo uu arko in ay yihiin qadcas, kuwaas oo ay ka mid yihiin in Iiraan laga saaro uraniumka aadka loo hodmiyay iyo Israa'iil in loo damaanad qaado xorriyadda ay u leedahay inay sii wadato howlgalladeeda militariga Gaza, Lubnaan, Syria iyo sidoo kale Iiraan, taas oo ay doonayso Israa'iil dagaaladaasi inaanay dhammaan, inaan lagu qasbin inay ka baxdo deegaanada ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada Israa'iiliyiintu, taas oo u muuqanaysa nidaamkaasi in uu muddo dheer raadinayay sidii arrintaasi Trump uga iibin lahaa. in laga fogaado baa layidhi dood ku saabsan xaaladda daanta galbeed iyo waliba weerarada ay adeegsanayaan baa layidhi Israa'iil iyo Falastiiniyiinta si halkaasi loogu baqsado, oo waxay doonaysaa Trump inuu siiyo damaanad qaad dhammaystiran in tillaabooyinka ay samaynayaan aan laga hortagin. wasiirka nidaamka Israa'iil u qaabilsan dagaalka ee Israel Katz lagu magacaabana waxa uu soo bandhigay in ay doonayaan in ay weeraraan xarumaha tamarta Iiraan, laakiin Mareykanka ma ogola hadda buu yidhi. taasina waxaa baadi goobaya ra'iisul wasaare Netanyahu oo booqasho ku jooga dalkaasi Mareykanka. wasiirka dagaalka ee nidaamka Israa'iiliyiinta ee Israel Katz ayaa sheegay in dowladdiisu ay si weyn u doonayso inay weerarto xarumaha tamarta Iiraan, balse uu sheegay in Mareykanka uusan ogolayn tallaabadaasi marxaladda hadda jirta marka lagu akhriyo. Katz waxa uu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay ku duulaan Israa'iil si ay u fuliyaan weerar ka dhana Iiraan, isagoo sheegay in mas'uuliyiinta Iiraaniyiintu aysan arrintaasi aad uga warqabaan buu yidhi, taa beddelkeedana ay garaacayaan wadamada Khaliijka. wasiirka ayaa intaasi ku daray in ciidamada Israa'iiliyiintu ay burburiyeen qiyaastii 70% marinada Gaza, isla markaana ay sheegeen in ay qaabka howlgallada magaaladaasi u gudbeen baa layidhi koonfurta wadankaasi Lubnaan. dhinaca kale, wasiirkan mayalka adag ee Netanyahu xulufada la ah ee Katz waxa uu qiray in Mareykanka uu leeyahay dano iyo tixgelin gaara oo ku saabsan arrinta Iiraan, kuwaasi oo sheegaya in ay ka duwan yihiin isla markaana ay ka ballaaran yihiin danaha Israa'iiliyiinta, sida uu hadalkan u dhigay markaad si dhammaystiran u eegto doodiisa. weerar lixaad ayaa lagu qaaday gobolka Kurdistaan ee dalkaasi Ciraaq, halkaasi oo la sheegay in ay joogaan ciidamada Mareykanka. diyaarada iswada ayaa lagu garaacay gobolkaasi, gaar ahaan magaalada Erbil iyo sidoo kale deegaano kala duwan oo ka mid ah Sulaymaaniya. waxaana muuqanaya ciidamada wadanka Ciraaq iyo sidoo kale kuwa isbahaysigu uu Mareykanka hogaaminayo inay si weyn ula tacaalayaan sidii dhibaatooyin aysan u soo gaarsiin lahayn duqeymaha ay sameynayaan diyaaradahaasi. gobolka ismaamulka goonida ah leh ee Kurdida wadanka Ciraaq ee Kurdistaan ayaa mar kale wajahay xaalad amni oo aad u kacsan kadib markii meelo kala duwan looga qaaday weerar istaba joog ah oo loo adeegsaday diyaaradaha iswada ee aan duuliyaha lahayn. weerarada ayaa yimi kadib markii isku dayo lagu beegsaday qunsuliyadda Mareykanka iyo saldhigga isbahaysiga caalamiga ee ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada Erbil.
sida ay sheegeen mas-uuliyiinta difaaca cirka ayaa ku guulaysta baa layidhi inay ka hortagaan weeraradaasi aadka u sii xoogaysanaya. sidoo kale diyaaradahan iswada ayaa lagu weeraray xarumo ay leeyihiin xisbiyada mucaaradka kurdiyiinta Iiraan oo ay ka mid yihiin xisbiga dimuqraadiga Kurdistaan ee Iiraan ee KDPI la yiraahdo iyo xisbiga Komala kuwaasi oo ku yaala baa layidhi waqooyiga Erbil iyo deegaano ku teedsan gaar ahaan deegaanka la yiraahdo Al Khalifa. weerarada ayaa waxa ay sababeen burbur hantiyadeed oo ballaaran, hase yeeshee lama soo warin ilaa iyo hadda wax weyn oo khasaare nafeed ah oo lagu sheegay dagaaladaasi in ay sababeen. ilaa iyo hadda ma jiro dhinac rasmi ah oo sheegtay mas-uuliyadda weeraradan. dowladda gooni isutaagga raadinaysa ee Kurdistaan ayaa sheegtay in qaar ka mid ah weerarada lagu soo qaaday gudaha waddanka Ciraaq, gaar ahaan gobolka la yiraahdo Nainawa, waxaana ugu baaqeen dowladda federaalka ee Baghdad iyo beesha caalamkuna inay qaadaan tallaabo degdeg ah si loo joojiyo weeraradaasi soo noqnoqday ee lagu bartilmaameedsanayo gobolkaasi sida gaarka. marka la fiiriyo 15 sano oo Israa'iil ay ku dadaalaysay in ay Mareykanka Iiraan qoorta u galiso, ra'iisul wasaare Netanyahu mar kale arrintaasi ayuu doonayaa in uu sii xoojiyo. qaar ka mid ah khubarada istiraatiijistayaasha ah ee bartay calaaqaadka dibadda iyo waliba dagaalka waxa ay sidoo kale khubaradaasi tilmaamayaan in marka la joogo xaaladda bariga dhexe ay hadda u muuqata Israa'iil wali in ay dambaaburada iyo isku dirka dagaalka ay ka sii faa'iideysanayso. waxaana loo baahan yahay baa layidhi dowladda Washington inay dhugmo dheer ku eegto xaaladda hadda ka taagan gobolka iyo dagaalka ciidamadeedu ay muddada dheer ku jiraan. iyadoo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu isku dayay inuu kulan la yeesho madaxweyne Donald Trump, waxaa jira sababo badan oo laga filan karo in uu isku dayi doono ka hor inkastoo dadaal kasta oo lagu soo afjarayo colaadda ka taagan gobolka Khaliijka haatan lagu dadaalayo. sida uu qoray aqoonyahanka iyo muxallilka sare ee Dr. Mohammed Javad Zarif, rajadan ma aha baa yidhi mid ku salaysan xaaladda maanta oo kaliya, balse waxay ku dhisan tahay taariikh ka badan 50 sannadood, taas oo ku doodaysay in Israa'iil ay si qarsoodi ah uga shaqaynayso sidii Mareykanka iyo Iiraan ay u gali lahaayeen iska horimaad militari oo aad u ballaaran. qoraagu waxa uu soo qaatay ilaa iyo 4 qodob oo muhiim u ah marka la fiiriyo xaaladaha taagan. dokumentiyo sirdoon oo markii dambe la shaaciyay, xasuus qorro iyo qoraallo ay soo bandhigeen saraakiil sare oo Mareykan ah, baaritaano saxaafadeed oo madax bannaan iyo daraasado iyo cilmi baarisyo tacliimeed oo bannaanka keenay damaca Israa'iiliyiintu inay yihiin sida ay uga shaqayn lahaayeen Mareykanka iyo waliba dowladda Iiraan inay hardamaan. maqaalku waxa uu ku dooday in Netanyahu uu kulanka la yeelanayo Trump uu adeegsan doono inuu saameyn ku yeesho baa layidhi siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Iiraan, isla markaana uu ka hortagayo tallaabo kasta oo horseedi karaysa dejinta xiisadda gobolka. Dr. Mohammed Javad ayaa aragtiyadan waxa uu leeyahay waa mid u baahan dowladda Iiraan intii ay goortaaba in ay ogaadaan. iyadoo xalay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump uu daboolka ka qaaday in wada xaajo dowlad leeyahay dowladda Iiraan, haddana Tehran ayaa maanta si toos ah u beenisay wada hadalladu inay yihiin kuwa toos ah oo dowladda Washington kala dhaxeeya iyo haba yaraatee madaxweyne Trump. waxaana ay tilmaamayaan inaan hadda la joogin xilligii labada dhinac ay sor fadhiisan lahaayeen oo dagaalka iyo waliba ujeedooyinka loolanku uu hadda gaarsiisan yahay meel sare. dowladda Iiraan ayaa si rasmi ah u beenisay wararka sheegaya in wada hadallo toos ah ay la leedahay Mareykanka, iyadoo cadaysay in xiriirka labada dal uu hadda ku kooban yahay isdhaafsiga fariimo ay gudbiyeen dhexdhexaadiyaal. wariyaha Al Jazeera ee Tehran, Rania Qasimi, oo soo xiganaysa afayeenka wasaaradda amuraha dibadda Iiraan Ismaaciil Baqai, ayaa sheegtay in Tehran ay hadda ku shaqaynayso 2 waddo oo kaliya: wadada diblomaasiyadda oo ku kooban isdhaafsiga fariimaha iyadoo la marinayo dhexdhexaadiyaal si loo gaarsiiyo baa layidhi wada hadal toos ah oo lala yeesho Mareykanka, iyo wadada militariga oo diiradda lagu saarayo difaaca dalka iyo ka jawaabidda weerarkaasi
weerar kasta gaar ahaan arrimaha la xiriira maraakiibta iyo isu socodka marinada badda. Iiraan ayaa sidoo kale xaqiijisay inay sii wada tashiyo siyaasadeed iyo farsamo ay la leedahay dowladda Cumaan, kuwaasi oo ay ku tilmaameen kuwo wanaagsan oo wax dhisaya si loo maareeyo isu socodka maraakiibta loona ilaaliyo amniga qaranka waddankaasi Iiraan. dhinaca kale, Tehran ayaa si cad u diiday codsi uu Mareykanka ku doonayay inay furto marin kale oo badeed oo dhinac kale ah. wasaaradda amuraha dibadda Iiraan waxay beenisay wararka sheegaya in Iiraan ay codsatay wada hadallo lagu qabtay Qatar ama Pakistan iyo in lagu heshiiyo xabad joojin ama hakad dagaal oo soconaysa muddo 10 maalin ah. dhammaan hadalladaasi waa kuwa aan la qaadan karin ayaa lagu yiri hadalka ay maanta soo saareen. dhinaca kale, wargeyska caanka ah ee Mareykanka Wall Street Journal ayaa waxa uu daboolka ka qaaday caqabad culus oo dowladda Washington ay wajahayso, taas oo maalmihii ugu dambeysaba qaar ka mid ah wakaaladaha wararka waaweyn ee adduunku ay soo bandhigayeen. waxaana la xiriirtaa joojinta dagaalka waddanka Iiraan ee Mareykanka uu ku dhaqaaqay maalintii afraad maantana soconaysa inay ku salaysan tahay hoos u dhac ku yimid gantaalihii istiraatiijiga ahaa. wargeyskan waxa uu sidoo kale soo bandhigayaa xitaa gantaalaha weerarka ee ka gudubsan kuwa difaaca inay saameyn ku yeesheen dagaaladii ugu dambeeyay. The Wall Street Journal oo soo xiganaya saraakiil Mareykan iyo dhexdhexaadayaal ayaa sheegaya in horumar laga sameeyo wada hadallada u dhaxeeya Iiraan iyo saldanada Cumaan. warbixintu waxay sheegtay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu hakiyay weerarada lagu waday Iiraan fiidnimadii Jimcaha si fursad loogu siiyo wada hadallada diblomaasiyadda iyo dadaalada soconaya. sida warbixinta xusta Mareykanka ayaa si toos ah uga qayb qaadanaya wada hadallada, balse xiriirka ayaa lagu wadaa dhexdhexaadayaal oo kaliya. dhinaca kale, wargeyska ayaa sheegay in Mareykanka uu wajahayo caqabad la xiriirta xaddiga kaydka gantaalaha difaaca cirka uu haysto, xilli ay Iiraan muujinayso inay weli haysato tiro badan oo gantaalo baalistiga ah iyo diyaaradaha iswada. xitaa Mareykanka waxaa saameyn ku yeeshay buu leeyahay gantaalihiisii tooska ah ee dagaalka. warbixintu waxay tilmaamaysaa in arrintan ay saameyn ku yeelan karto qorshayaasha militari ee Mareykanka haddii colaadda ay sii socoto muddo aad u dheer. telefishinka Mareykanka ah ee ABC News Iran waxa uu leeyahay Mareykanka waxa uu ku qasban yahay dib u dhigidda weerar lagu qaado gudaha waddankaasi Iiraan, taasoo muujinaysa tabarta iyo taagta Washington ay haatan u leedahay dagaalkaasi inay si laba laxaadiso. shabakadda wararka ee ABC News oo xiganaysa saraakiil Mareykan iyo waliba xog ogaalo kale ayaa sheegaysa in madaxweyne Donald Trump uu mar kale dib u dhigay qorshe lagu ballaarin lahaa weerarada ka dhanka Iiraan, iyadoo la sii wado dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in dib loogu furo marinka Hormuz. sida warbixintu ay sheegtay, go'aanka ayaa yimi kadib kulan ka dhacay aqalka cad maalintii Jimcaha, taasoo ay saraakiil sare iyo la taliyaal ku falanqeeyeen xulashooyin kala duwan, cawaaqibka ka dhalan kara iyo walacyada la xiriira si ballaarinta dagaalka. warbixintu waxay intaasi ku daraysaa in madaxweyne ku-xigeenka JD Vance iyo waliba gudoomiyaha taliyaasha ciidamada Mareykanka ama taliyaha wadaagga ee dalkaasi ay kulan ka muujiyeen walaac ku saabsan qatarta ka iman karaysa colaadda oo la sii ballaariyo. sidoo kale, jenaraal kale ayaa sheegay in uu Trump u sheegay ciidamada Mareykanka inay awood u leeyihiin inay fuliyaan qorshayaal militari ee lagu tixgelinayo, balse sidoo kale uu ka digay cawaaqibka suuragalka ah dagaalkan haddii uu sii ballaarto in kaydka hubka iyo gantaalaha waddanka Mareykanka uu saameyn weyn ku yeelan karo. waayahay khiyaarta ay nala soconaysaa, intaasi waxay ahaayeen wararka ugu waaweyn oo aynu faaqidayno. hase haatee, qaar ka mid ah saaxiibadii hore ee jawaabihi ay ka soo baxayeen su-aashii aynu hordhignay ee la xiriirta cidda gacanta ku hayi doonta gobolka Bariga Dhexe marka loo fiiriyo isbedelada soconaya yaa ka mid ah. daawadahan ugu horeeya waxa uu leeyahay magacaygu waa Ismaaciil Ayjaax, waxaan joogaa Copenhagen dalka Denmark. waxa uu leeyahay Trump caqligiisa kuma socdo oo joojin maayo dagaalka, waayo Netanyahu ayaa u taliya oo sir weyn ka haya buu leeyahay. waa sida uu doodiisa u dhigay.
dawdaan kale waxa uu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa Asad Cabdullaahi Sheekh oo jooga dowlad deegaanka Soomaalida waxaan qabaa in Iran ay la wareegi doonto insha Allah idamka alle ayuu yiri dawdaan kalena waxa uu leeyahay waa Liban Shariif oo jooga Muqdisho salaamullaahi calaykum barrow Trump hadalkiisa wax ka soo qaad ma leh marka bariga dhexe waxa go'aaminaya dowladda Iran maxaa yeelay Mareykanku waxa uu ku yimid baaleeri 12,000 oo kiiloomitir Iranna bariga dhexe ayay joogtaa awoodana way leedahay barrow guulayso yiri aad baad ma santahay saaxiib adigana haddii aan marka su'aasha kale oo daawadayaasheena aan hor dhigayno maanta si tabinadeena kale ay ugu daawan doonaan waxa kamid ah sirdoonka wadamada Mareykanka ee CIA-da iyo kan Israel Mossad labadaba waxa ay bilaabeen inay baadi goobaan halka uu ku sugan yahay hogaamiyaha duubka weyn ee wadankaasi Iran Mujtaba Khamenei kaasoo tan iyo markii uu talada la wareegay dilkii aabihii kadib lala yahay samarkaana hagaya dagaaladan Mareykanku ay faraha uga gubteen haddaba baadi goobkan ay siyaadiyeen suuragal ma tahay Khamenei in la soo helo magacaada ku bilow iyo meesha aad joogto kadibna aragtidaada qaybta hoose ee faallada inoogu qor